اللهم صل على سيدنا نبينا محمد. أنا جوا عبد الكريم عبد الله حاشي. تاجر يا شحيسنا سلطان مهدي عبد إبراهيم سلطان كقربتشوق سومالان. أوكي مدل كإنجليز كا مقالة بريستول. أيام كسر دويننا وعشوجا ما ضحنا كمدة سومالان ونوكلهارين. وعشوجا وسيرو حكومة وعشوجا هواينكي دنيارتي والوضع ده هي سودوينتا سلطان كقربتشوجا سومالان سلطان مهدي ونقول كسر دو تلقاه هويو وعن كسر دويننا مجا جمهورية سومالان وعن كسر دويننا مجا تاجرياش حوشنت حسبك كلمية رجية دمر أنا قالوا كلهارين maanta waxaan soo dhaweynaynaa Suldaan Mahdi Ibrahim Suldaanka Qurbadjooga Soomaaliland suldaankaas oo dalkiisa aad iyo aad aan ugu faraxsanahay ka xukuumad ahaan iyo ka xisbi ahaanba waxaan ku leenahay suldaan ku soo dhawow waa dalkaagii oo in badan ku xiisay hawlihii qaran ee qurbaha Soomaaliland uga haysayna imika halkan aad ka dardargelin doonto imikana waa soo dhaweyn marka Suldaan Mahdi Ibrahim waxaan leenahay dalkaaga hooyo ku soo dhawow Suldaan Mahdi Ibrahim waxaan leenahay dalkaaga ku soo dhawow suldaan aad iyo aad baan taladaada iyo tusaalahaaga ugu baahanahay haweenweynihii xisbiga wasiiradii iyo maamulkii xukuumadda Soomaaliland intuba diyaar bay xaqan kuugu yihiin suldaan soo dhawow baan ku leeyahay bare salaanka bacdi goor gaaban hadalkeed gaaban waxaan iskugu nimidnay inaan dalka hooyo ku soo dhaweyno Suldaan Mahdi Abdi Ibrahim inaan nidhaahno ku soo dhawow dalkaagii hooyo aan nidhaahno ayaan iskugu nimidnay anigana si gaar ah u khuseeyayo waa suldaan dhalinyaro haddaan anagu wasaaradda dhalinyarada nahay suldaankii dhalinyarada soo degay baanu leenahay waxaad ka garanaysaa dhalinyaro fara badan oo halkan taagan oo kala duwan oo xaafadaha Hargeysa iyo wadanka oo dhan iskaga yimaaday waxay yiraahdeen waa suldaan aanu si gaar ah xiriir anagu aan u leenahay ayaanu ugu nimidnay suldaankan ayay yiraahdeen marka suldaan salaadiintu laftoodu si ay dhalinyarada u kasbadaan de social media waa inay la socdaan oo waxa weeye inta England iyo Hargeysa waxa isku xidhay waa social media isku xidhay dhalinyarada aad iyo aad baad u mahadsantiin suldaankana soo dhawow baan leeyahay mar labaad dadkii waa la dhameeyay anigoo afka dawladda ku hadlaya xisbiga iyo dawladduba dhammaan waxaan soo dhaweynaynaa maxaan ku radaa suldaanka Qurbadjooga Mahdi waxaan leenahay dalkaagii hooyo ku soo dhawow dadka ku soo dhaweynaya waa dadkaagii waxaan ku leenahay welcome dalkana inaad timaadid waa loo baahnaa in aad fikrad ka qaadid waa loo baahnaa annagoo xisbi iyo dawladba dhan waxaan ku leenahay ku soo dhawow hadalkala badin maayo waqti calcada la joogaa waa mahadsantiin waxaweye runtii annagu waa maxayday xoojinta xisbiga kulmiye gruubka la yiraahdo waxaanu maanta halkan ku soo dhaweynay suldaanka Qurbadjooga Mahdi oo runtii ah suldaan kayaga oo anagu qurbaanka mid isu magaalanay waxaweye runtii suldaanka Qurbadjooga marka waxaan leeyahay Mahdi ku soo dhawow magaaladaada iyo dalkaaga hooyo salaamantiin waxaan ka salaamayaa runtii waftiga ballaaran ee halkan jooga wasiirada iyo salaadiinta iyo haweenka runtii halkan goobtan ku sugan anigoo magaca ku hadlaya xildhibaanada golayaasha deegaanka oo fursad maanta u helay inaan Suldaan Mahdina soo dhaweyno oo airportkii ku soo dhaweyno suldaan soo dhawow dalkaaga ku soo dhawow dadkaaga ku soo dhawow aad iyo aadna waan kaaga mahad celinaynaa safarka aad noogu timiday والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل يدي وهذا الكوال ولا يجري سلطان كوال سوول دويي أنا كنا أنا إنتاج كدر سنة يا سلطان سودو وقعم فرن يا قلب فرن هذه أدب ما سنتين. halkan waxaan ku soo dhaweynaynaa anagoo aqrabkii kulmiye bahweyntii kulmiye waxaan ku soo dhaweynaynaa suldaanka Qurbadjooga Mahdi ayaan aad soo dhaweynaa waxaan leenahay welcome to Hargeysa waxaan halkan ku soo dhaweynaynaa Suldaan Mahdi Ibrahim oo ah suldaanka Qurbadjoogta UK suldaanka waxaan leenahay ku soo dhawow Soomaaliland waxa lagu gartaa ninka haldoorka maalinta ribatu yimaada ay soo taaga maanta waxaan ognahay in doorasho loo taagan yahay
oo xisbiyadii loolan ku jiraan dee waa ragga haldoorka ah ee ka shaqaynaya ee u yimi siday uga qayb qaadan lahaayeen doorashada ka dhacaysa maalmaha fooda inagu soo haya Somaliland marka soo dhawow baan leeyahay suldaanka afka dhalinyarada Somaliland waxaan maanta ku faraxsanahay inaan dalkii hooyo ku soo dhaweyno suldaanka qurbajoogta Somaliland Suldaan Mahdi Ibraahim Cabdi walibana suldaanka dhalinyarada Somaliland suldaanka wuxuu cajiib ku yahay dalka gudihiisa iyo dibadiisa dhalinyarada oo dhan xiriir buu leeyahay waa suldaan markaanu jecelnay soo dhawow baan ku leenahay dalka hooyo marka hore Ilaahay baa mahadle Ilaahay halkan isku keenay waxaan leeyahay alxamdulillaah rabbil caalamiin mar labaadka waxa soo dhaweynaya salaadiinta wasiirada haweenka soo dhawaadaan leeyahay marka kale suldaanka qurbajooga Mahdi Ibraahim soo dhawaad ku leeyahay wadankaaga Mahdi Cabdi Ibraahim warka wadankaaga ugu soo dhawow aad iyo aad baan ku soo dhaweynaa alxamdulillaah rabbil caalamiin soo dhawow السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وعمان تشرفنا إن مدارك عقال عن كسر دوينو سلطانك قربجوك Somaliland سلطانك دلنيرada سلطان مهدي عبد إبراهيم oo maanta noogu yimid oo markii ugu horeysay soo gaaro dalka ay tahay waxaan u leenahay suldaanka suldaan soo dhawow aad baan ku soo dhaweynaynaa arrimaha gawraan ula soconay qurbaha saad uga shaqaysan ognahay halkanina waa halkii dhulkii hooyo oo aad maanta timid waxaan leenahay haddaanu nahay dhaqankii anoo ku hadlay afka dhaqanka Somaliland inta joogtay inta maqanba waanu ku soo dhaweynaynaa waxaanu kugu soo dhaweynaynaa annagoo dhaqankiya dadweynihiya iyo xisbigii qaranka oo xisbigii kulmiye ayaan kugu soo dhaweynaa oo in badan aad ka shaqaysay dibadda aanu ognahay hawlaha aad ka qabatay halkana hawlo badan oo xagga xisbiga ay ku yaalaan inaad kala shaqaysaa waxaanu ku leenahay mar koobaad iyo mar labaadba soo dhawow waan ku soo dhaweynaynaa waxaan ku leenahay qurbajoogiina haddii alla idhaahdo waxaan faranaa in suldaankooga qurbajoogka Somaliland ay la shaqeeyaan halkana waan kugu soo dhaweynaynaa soo dhawow aad iyo aad baan ku soo dhaweynaa assalaamu calaykum waraxmatullaah marka ugu horeysa ilaah baa mahad leh mar labaad waxaan u mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland madaxweyne ku-xigeenka wasiirada sharafta leh golayaasha qaranka salaadiinta waaweyn ee jamhuuriyadda Somaliland oo markaan anigu imaado aan arday u ahay anana u imaaday aqoon kororsi waxaan si gaar ah iyaga u salaamayaa haweenka iyo xisbiga kulmiye oo anoo xisbiye badan la lahaa muxuu ahaa gacan saar maanta aan halkan ugu imid xisbigii kulmiye ay ishoodu qabanayso si gaarana ma aragtay awoodda aanu saarayo oo aan leeyahay xisbiga kulmiye aad iyo aad baad u mahadsantihiin sida quwadda iyo sharafta leh ee soo dhaweyseen saxaafadda ayaan mahadnaqayaa shacbigii Ingiriiska iyo Yurub iyo Ameerika gaar ahaan magaalada Bristol iyo xoojinta xisbiga kulmiye nimankii dardargelinta sameeyay ee reer Bristol ahaa dhalinyaro aad u firfircoon magacaantooda soo koobi karayn oo maanta halkan hadaan ka wada sheego ma aragtay aad iyo aad baan ugu salaamayaa dhammaantood assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh